gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta Mudane Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine ayaa muddo kadib dib u furay xafiisyada xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta wuxuuna isla xarunta kula kulmay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta Mudane Cabdulaahi Sheekh Nuur Axmed iyo xogayaha guud ee xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta Mudane Yuusuf Maxudiin Axmed iyo dhammaan shaqaalaha kala duwan ee xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta balse gudoomiye Cali Shiine ayaa sheegay inuu ka shaqeyn doono isu keenista dhammaan bahda kubadda cagta dadka ka shaqeeya kubadda cagta waxay ka shaqeeyaan waa la yaqaan kubadda cagta waaye kubadda cagta khilaafkeeduna aad mid raaga maaha 90 daqiiqo waaye 90 daqiiqo bacdina way iska dhamaan doontaa marka wax oo aniga dhibaato zaid inay jiraan ma aaminsani in la midoobo ayaynan 90% u badan tahay waad maqlaysaa 16 Febraayo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta wuxuu dhahay in la wada shaqeeyo oo kubadda cagta loo midoobo anigu taas ayaan dareenkeenu kubadda cagta in loo midoobo guud ahaan bahda kubadda cagta Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay isbeddelka ka dhacay hoggaanka xiriirka balse gudoomiye Cali ayaa u mahad celiyay dhammaan dadkii Soomaaliyeed ee u soo hambaliyay isagoo ballan qaaday in uu ka shaqeyn doono dhameystirka qorshaha horyaala xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta muddada xilhayntiisa isbeddel dhacay xiriirka intii aan teeramkiisa dhamaan ayaa wax ka dhacay isbeddelkaas waa ku faraxsanahay sababtoo ah waqti dheer khilaaf jiray khilaafkuna waxa la rabaa inuu dhamaado waqti dheer khilaafka jiray ayaa soo gabagaboobay marka aadan ugu faraxsanahay gudoomiyaha hore isla shaqeey jirnaan asagana aadan ugu mahad celinayaa sababtoo waqti badan aan wax soo qabanay anigana kulli waxaan rajaynayaa hawl adaga ay taala in Ilaahay ii fududeeyo dhinaca kale gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta Mudane Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine ayaa sheegay inay bilaawi doonaan dhacdooyinka kubadda cagta dalka wuxuuna kooxaha iyo dhammaan taageerayaasha dalka ugu baaqay in loo midoobo horumarinta iyo geedi socodka kubadda cagta waxaan bilaabi doonaa heerar kala duwan ee gudaha kubadda cagta horyaalada kala duwan bilaabi doonaa hadii la yiraahdo bisha Ramadaanna waa ogtahay wiligeed Banooni lama ciyaarin bisha Maarsna qaranka u diyaar garowayna waxa kale oo rabaa sanadkan inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego waxaan ciyaareynaa under 17 oo kaafa iyo under 20 oo kaafa labadaba muddada xilhaynta hoggaanka xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta ayaa ku eg bisha November 2022 balse gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta Mudane Cali Cabdi Maxamed wuxuu sheegay in maamulkiisa uu diyaarinayo doorasho hufan oo ay ku qanacsan yihiin dhammaan saamileyda kubadda cagta ee kala joogta gudaha dalka iyo dibaddiisa hoggaanka xiriirka cid kastoo Soomaali ah ayaa xaq u leh in ay u tartanto waxaan aaminsanahay tartankaas ninka ku guuleysta hoggaamin doona tartankuna cid uu ka reeban yahay ma jirto ama ha ahaado dad kubadda cagta hor uga shaqeeya ama ku cusub ahaadaan tartan waa tartan waxaan rajaynaynaa oon u soconnaa in kubadda cagta caafimaad qabta oo doorasho xalaal ay ka dhacdo inay dalka ka dhacdo insha Allah wayna ka dhacaysaa sababtoo waa la isla yaqaanaa laba arrimood in doorasho u dhacdo in heshiis la galo ay ku dhacdo iyo in tartan sanduuq la dhigto labadaas midkood uma dhici doonta mid ka soo dhici doontana inay wanaagsan doonto aaminsan si kastaba dib u furista xafiisyada xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta ayaa lagu tilmaamay guul weyn oo laga gaaray khilaafadii hareeyay howlihii xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta bilooyinkii la soo dhaafay balse madaxda xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in loo midoobo dhiirigelinta xulka qaranka Soomaaliya oo la ciyaarayo dhigiisa Slovenia isreebka koobka qaaradda Afrika ee AFCON 2023 inaan ka soo gudubno wareegga hadii Ilaahay yiraahdo ummadda Soomaaliyeed oo kubadda jecel 125 dhalinyaro ah waxay ku farxadeen in ka yimaadaan hadii Ilaahay yiraahdo